asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan halkan kuu soo jeedin doonaa tallaabooyin aad ku horumarin karto naftaada. marka laga hadlayo horumarka, runtii way kala duwan yihiin, waxay kala baxaan meelo badan. hadda waxaasoo dhan kama hadlayo ujeedadadu waxay tahay sidaad u horumarin lahayd. haddii aad tahay shaqsi gaadha, sidee u noqon kartaa qof horumar leh, sidee u noqon kartaa qof hore u socda. ma rabta inaad naftaada horumar gaadhsiiso? haddii ay jawaabtaadu haa tahay, marka hore qofka aan la hadlayo ma yahay qof hiigsanayo nolol ama hadaf dheer ah, taasoo wax badan ka bedeli doonta noloshiisa. qodobka koowaad, nadaafadu waa shay qaali ku ah nolosha aadamaha. waxay ka hortagtaa wax badan oo halis gelin kara noloshaada. waxay qayb ka qaadataa hadafka hiigsanaya nolosha. marka waa inaad ku darsataa nadaafada. annadaafa nisfu min al-iimaan. nadaafadu waa iimaanka kala barkii. 2. xanaaqa. inta badan dadkeenu waxay isku laayaan ama isku qabsadaan wax yar oo macno leh oo qofka ka xanaaqa, taasoo ka dili karta dad in badan is-yaqaani ama iswada shaqeeyey. marka bal adiga dadka aad la nooshahay ama aad wada shaqaysaan ha xanaaq badnaadaan, balse adiga ka duwan oo iyaga, si aad u gaadho halka aad rabtay. waxaa laga yaabaa inay kuga adkaato, hase yeeshee isku dhibkaaga baha noqotee. 3. qodobka 3aad, dadaalku waa qayb ka mid ah waxyaabaha aan ku gaadhi karno noloshiina. wax kastoo aad rabto mar suurtagalaan haddaanan dhexda loo xiran oo aanu dadaalin. hadafka sidiisaba wuxuu u baahan yahay dadaal aan kala go' lahayn, taasoo ku gaadhi karno halka aynu rabno oo aynu u xarareyno. 4. samir waa shayga ugu qaalisan naftaada. samirku waa laf-dhabarka nolosha, waayo tii hore loogu maahmaahay samraa sadkiisa helaa. waxaana laga yaabaa haddii aad u samirto waxaad rabto inaad qabsato inaad hesho. qofka samirka badan wuu ka duwan yahay qofka kale ee dhiiggiisa, sababtoo ah waxaa jira dad haddaad ku tiraahdid samir ayaan u baahanahay ee samir, way kula yaabayaan. taasina waxay cadeen u tahay jahliga inay hadheedhaya ee ku jira dadkeena, una baahan in laga dabiibo. nolosha sideeda banaan ma jiraan wax iska yimaadaan, ee wax kasta waxay ku yimaadaan dadaal iyo samir dheeraad ah. 4. awoodaada. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku siiyey haybad aad u fara badan oo xataa dheer tahay dadka. haddii aad aaminto awoodaada oo aad kaashato caqligaaga, waa baraysaa wax kastoo aad u baahan tahay. haddana waad shaqaysataa. ilaahay mooye aan bili-aadan ahayn aadan u baahnayn waxa isticmaalaan awoodda oo ilaahay siiyey. haddaba adiga ilaahay subxaanahu watacaala ku dhamaystira xubnahaaga. maxaa ku falaysaa inaad dadbarido ama aad wax weydiisato qofacaaga ah? aamin awoodda oo ilaahay ku siiya ee lasoo bax waqti kasto ama caqabado kasta oo ku qabsada. 5. alla aamin. haddii aad tahay qof alla aaminsan oo aad tala saarato, waxaad ka badbaadi kartaa waxyaabo badan oo ka duwan. waxay ku tusaysaa awoodda alle. hadday taladu ku garaacanto ama nolosha kuga adkaato, ilaahay weydiiso wax kasta oo gacanta alla u taag. qof bil-aadan ah weligaa gacantaada ha u hoorsanin. wax bayaan hadalka kugu talax tegine. waxaa idin rajaynayaa inaad isku daydo ama fahanto muhiimadu ay leedahay horumarka naftaada.